بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aan ku soo dhawaada kooraskii Windows Server 2019 kaasoo aynu ku baratical garanaynay qaabka uu shaqeeyo serverku sidoo kale qaabka loo maamulo. Waxaanu soo sameynay aynu soo rakibnay serverkii ugu horreeyey kaasoo aynu ku soo shubnay server 2019 ah oo desktop experience ah. Sidaa awgeedna aynu ugu magac danbay waxa weeye DC inuu noo noqdo ama domain controller. Intaa markaan ka nimaadno waxaynu isku dayi doonaa maanta inaynu muuqaalkeena aynu wax badan kaga hadalno qaabka loogu shubo core server kaasoo kii hore uu ahaa isagu waxa weeye mid graphical user interface leh mid tilmaamo iyo sawiro la xardhay leh laakiin kani wuxuu noqon doonaa command line user interface mid shaashad command line aynu ku amarno syntax iyo qaab qoraaleed yeelan doonta aynu ku baranayno. Marka waxaan ku shubi doonaa server 2019 ah 19 kana waxaynu ka dooran doonaa inuu noo noqdo core server. Marka kale install gareyn doonaa kuwana iyagana la mid waan install gareyn doonaa. Si aan waxa weeye marka aan kan install gareey waxaan soo kicin doonaa VMware ama virtual machine markaan soo kiciyo uu soo kaco waxaan ka dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay create a virtual machine. Create marka ku dhufano custom baan ka dooran doonaa next baan siin doonaa qaybta installer baan ku dhufan doonaa disk image browse baan leenahay waxaan soo dooran doonaa marka filekiina waxa weeye Windows Serverkii 2019 waa ka halka ay soo filekiisa igu jira waxaan leeyahay open next baan siinayaa next markaan siiyo yes baan leeyahay halka waxaan dooran doonaa ula bixi doonaa ATU SR hyphen core baan leeyahay itana waxaan siin doonaa next halka waxaan dooran doonaa ramka waxaan dooran doonaa ama memory waxaan ka dooran doonaa 4GB next baan leeyahay sidoo kale next baan leeyahay qaybtan waxaan u allocate gareyn doonaa store virtual disk as a single file halkana waxaan ka dhigi doonaa 100GB ayaan capacity ka dhigi doonaa next baan leeyahay next waa tab siin doonaa finish waad leeyahay intaanu soo rangareysmin waan xiri doonaa intaanu isoo kicin iska xiri doonaa waxaan leeyahay shutdown baan siin doonaa shutdown markaan siiyo waxaan tegi doonaa edit a virtual machine settingkiisa waxaan ka saari doonaa volume diskiga ayaan remove gareyn doonaa maadaama aan rabo inuu ka soo kaco waxa weeyaan hard diskiga inuu toos uga soo kaco maadaama uu computerka igu jiro waan si aan soo weynaysiiso control alt iyo enter baan isku qaban doonaa halka waxaan leeyahay press enter baan siinaya marka press enter baad leedahay laa iyo intuu isbedel ka sameynayo kaaga soo kacayo waxaad ku dhufanaysaa enter baad ku dhufanaysaa waayahay wakaa inoo soo kacay wuxuu noo soo saari doonaa Windows Serverkii buu inoo soo qabsaday dee waxaan ku dhufan doonaa halkan waad ka confirm garaynaysaa next baan leeyahay marka install baan leeyahay marka waayahay qaybta muhiimka ah waa qaybtan haddaynu markii hore aynu dooranay data center evaluation desktop experience kan waxaan dooran doonaa Windows Server 2019 data center waxaan ka dooran doonaa marka evaluation marka ka dhexda ayaa dooranaysaa next baad leedahay marka accept baan leeyahay next baan siinayaa custom baan ka dooranayaa next baad leedahay marka saas uu install garanayo oo step uu qaadanaya waayahay qaybtan markuu inoo soo saaro shaashada madow inoo soo saaraya shaashada markuu inoo soo saaro hadda wuxuu inagu xukmayaa inaynu samaysano passwordkii marka passwordkii ayaan soo gashan doonaa
enter baan leeyahay marka halkaa wuxuu leeyahay passwordkii gasho marka isagii baan dib u confirm gareyn doonaa marka passwordkii ayaan gashanayaa passwordka waxaa leeyahay ATU 123 isagaan confirm gareynaya marka waxaan ku dhufanayaa si aan u confirm gareeyo tab baan ku dhufanayaa intii baan dib ugu celinayay enter baan leeyahay marka saasuu markaa passwordkii inoogu sameeyo passwordkii inoogu samaysan yahay okay baan ku dhufanayaa marka qaabkaasuu inoogu soo kacaya administrationka oo dhammaystiran marka access waxaan u leenahay inaynu marka instructionka iyo usable caadi uu noqdo aan toos u isticmaali karno waayahay marka waxaan wadansanayaa sanadkan waxaan leeyahay shutdown baan leeyahay space baan leeyahay forward baan leeyahay f baan dooranaya marka waxay ka dhigan tahay inoogu dami oo false dooro calaa f-taasina false bay u taagan tahay saasuu marka inoogu damay si aan u soo kacsanno waxaynu taaban doonaa control alta iyo delete ayaad ku qabanaysaa ama halkan ayaa dooranaysaa passwordkii aan hadda soo samaysanaa ayaan gashanaynaa passwordkii ayaynu gashanaynaa waayahay qaybtaas passwordkii aad marka aad gashanaysaa enter baad leeyahay sidaa awgeed qaabkaas aynu ugu install gareyn karnaa waxa loo yaqaano Windows Server 2019 oo ah core server ama command line user interface marka qaabkaas aynu install gareysanayna saasaynu u doonsan karnaa marka qaybtaas aan install gareeya qaybtaas saas aynu ugu install gareysan tahay waa iska soo xidhaya waan loo doonsanayaa waxaynu imanaynaa qaybta labaad baan imanaynaa qaybta labaad waxaynu install gareynaynaa aan isku dayi doonaa inaynu computerkan isagana install gareyno kani waxaan ku shubi doonaa Windows Server 2019 desktop experience oo isagu waxa weeyaan ka labaad inoo noqon doona marka labadaasba waa desktop experience laakiin waxay ku kala duwan